بسم الله أما بعد مهمة ما أهن إن صلاة لدكتو لكن مهمة وحيتها صلاة الدكان يسميها لغا أقبلي وحالغا يابا قفك سندوين بدن إنو دكتو هل صلاتنا لغا أقبلين سيداد بي كتمت نبي صلى الله عليه وسلم أو مالي مساجد كجو وحاسوق علي نين صحابئة markaas ayaa salaada markuu dhameeyay kadib wuxuu u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga ayaa wuxuu ku yiri kadib saxaabigi baxlaabo maadan dukan ee maqlaba duko saxaabiga uu baxay uu dugtay markuu salaada dhameeyay kadib ayaa nabiga uu u yimid kadibna nabiga wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam baxlaabo maadan dukan maqlaba duko buu ku yiri ilaa markii saddexaad markuu ku yiri kadib sallallahu alayhi wasallam ayaa kadib uu u bandhigay sida loo baahan yahay salaada in loo dugto wuxuu tilmaamay nabiga in salaada loo baahan yahay in lagu degnaado lagu xasiloonaado lagu khushuuco sababtoo ah ruuxa salaada waa khushuuc ilaahay wuxuu leeyahay azza wajal qad aflaha almu'minuun waxaali baanay mu'miniinta waa kuwa ku khushuucaya salaadooda ilaahay waxaan weydiisanayaa azza wajal aniga iyo idinkay ittafaafisa xadiiskan inuu salaadooda aqbalo wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته بسم الله أما بعد مهمة ما أهن إن صلاة لدكتو لكن مهمة وحيتها صلاة الدكان يسميها لغا أقبلي وحالغا يابا قفك سندوين بدن إنو دكتو هل صلاتنا لغا أقبلين سيداد بي كتمت نبي صلى الله عليه وسلم أو مالي مساجد كجو وحاسوق علي نين صحابئة markaas ayaa salaada markuu dhameeyay kadib wuxuu u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga ayaa wuxuu ku yiri kadib saxaabigi baxlaabo maadan dukan ee maqlaba duko saxaabiga uu baxay uu dugtay markuu salaada dhameeyay kadib ayaa nabiga uu u yimid kadibna nabiga wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam baxlaabo maadan dukan maqlaba duko buu ku yiri ilaa markii saddexaad markuu ku yiri kadib sallallahu alayhi wasallam ayaa kadib uu u bandhigay sida loo baahan yahay salaada in loo dugto wuxuu tilmaamay nabiga in salaada loo baahan yahay in lagu degnaado lagu xasiloonaado lagu khushuuco sababtoo ah ruuxa salaada waa khushuuc ilaahay wuxuu leeyahay azza wajal qad aflaha almu'minuun waxaali baanay mu'miniinta waa kuwa ku khushuucaya salaadooda ilaahay waxaan weydiisanayaa azza wajal aniga iyo idinkay ittafaafisa xadiiskan inuu salaadooda aqbalo wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته